بسم الله الرحمن الرحيم warbixin ay qaramada midoobay soo saartay dhowr sano ka hor ayaa waxay ku sheegtay in boqolkiiba 30 Soomaalidu in ay qabaan nooc ka mid ah xanuunada nafsiga ee kala duwan ee jira taasoo ka dhigaysa saddexdii qof ee Soomaaliyeed la kulantidba inuu hal ka mid ah uu qabo xanuunadan dhibirka ku dhaca xanuunadaas maaha markaa nooc kaliya maaha laakiin waxay leeyihiin noocyo kala duwan kablo walbahaarka waxaan buufiska loo yaqaano warwarka stresska waxaan loo yaqaano ilaa aad ka gaaraysid waxaan cudurradan loo yaqaano schizophrenia waa qofku inuu laba shakhsiyadood ku kala nool yahay iyo kuwa kale borderline la yiraahdo ilaa aad ka gaaraysid waxaan ay Soomaalidu markaa u yaqaanaan waalida ay yaqaanaan marka waa noocyo kala duwan oo xanuun ah ay dadka kala duwan qabaan taas waa mushkilad aad u weyn oo la fahmi karo marka la arko in dhulalkan Soomaalidu ay soo mareen dhibaatooyin aad u kala duwan oo ah dagaalo oo ah xaalado bulshada aad u daran iyo xaalado dhaqaale oo keenay markaa mushkiladaha nafsiga keenay hase yeeshee warbixintan qaramada midoobay ka soo baxday waxay leedahay marka loo eego dhulkan Soomaalida marka loo eego dalalkii kale ee dagaaladu ka dhacay duruufo lamid ah dhulkan Soomaalida soo maray waxaad arkaysaa in xanuunada nafsiga ah ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ay ku badan yihiin taasna waa dhunaantii wax warwar keeni kara weeyaan waxa sidoo kale warwar keeni kara maaha jiritaanka mushkiladda lafteeda ama inay dalal kale ka badan tahay laakiin waxa mushkiladda aad ka weyn ay ka jirtaa habka ay dadka Soomaalidu ula dhaqmaan xanuunada nafsiga ah ama xanuunada dhibirka kala duwan ee qofka bini'aadamka ku dhaca habka loola dhaqmo waxaad arkaysaa in Soomaalidu xanuunadaas ay laba hab ay markaa u maareeyaan habka ugu horeeya oo ah in la aamino in qofkan uu jin ama arwaax ay ku dhacdaan ama la ilaystay ama xasad maaragtay ay lagu sameeyay kadib qofkiina uu markaa xanuunkan ay ku soo baxday kadibna markaa bishoo kale waxaan loo yaqaan aad maaragtay diinteena ay ka hadashay marka qofkii waxa la sameeyaa quraan baa lagu akhrinayaa waa la waxa weeyaan مثلا waxa la sameeyaa quraankaas lagu akhrinayaa aad loogu akhrinayaa isagoo marka la rajeynay in ishii marka ku dhacday iyo wixii ay ka baxdo waxa dhici karta kuwaas inay xal keenaan laakiin waxa dhici karta in qofkan bini'aadamka aynan haysan waxaas oo laakiin xanuun nafsi ah maaragtay ay haystaan oo u baahan marka daweyn inuu qofkii dhakhtar u tago oo marka laga daweeyo noocan labaad ee marka xanuunadan yani loola dhaqmo loo maareeyo waxa weeyaan in qofkii markaa loo aqoonsado inuu qof waalan yahay kadibna markaa lugta laga xiro ama la sii daayaba oo markaa daryar aan la siin wadadkan aan ku aragno iyagoo lugaha ka xirxiran oo xaalad aan bini'aadamnimo ahayn ku jira iyo dadkan qashinka iska cunaya laamiyada iska marmaraya labadaas xaaladood baad markaa ay Soomaalidu ula dhaqantaa xanuunada nafsiga iyo xanuunada dhimirka taasood markaa arkaysid in ay dhibaatada sii kordhinayso ina sii yareynay waxaad moodaysaa in Soomaalidu aqoonsanayn in xanuunada nafsi ay jirto oo markaa u baahan in qofkii dhakhtarka u tago oo markaa qirto inay wax ka sii yihiin si markaa uu u helo caafimaadkii iyo caawimaadii maaragtay oo u baahnaa marka waxa jirta meeshan mushkilad baa jirta xalkii laftiisu wuxuu keeni karaa mushkilad buu keenaya marka waa laba mushkiladood oo laba dhinac la markaa weeyaan mushkiladii lafteedu waa mushkilad natiijadii ka soo baxday habkii loo maareeyana waxa weeyaan waa mushkilad weyn طبعا asbaabaha in badan laguma murmi karo asbaabaha keeni kara xanuunada nafsiga ah dagaala meeshii ka dhacay colaado kala duwan baa ka dhacay qax baa ka dhacay qofkii dadkiisa jeclaa buu arkay hortiisa ku dhamanaya dad buu arkay hortiisa lagu dilayo wuxuu arkay gaajo arkay wuxuu arkay hurdo la'aan buu arkay waxaa jira jaadkoo kale oo مثلا aad in loo isticmaalo keena مثلا xanuunadan oo kale waxa imanaya tahriib baa dadkii soo galeen wuxuu qofkii ku noolaanaya مثلا qurbu ku noolaanaya isagoona reerkiisa arkan kala qixi family waxyaabahaas oo dhan xanuunada nafsiga way keenayaan xanuunada nafsiga waxa keeni kara duruufiye dhaqaale dhulka ka jira duruufihii bulshada furiinkii مثلا baa keeni kara مثلا qofkii dumarka in مثلا la furo oo marka ay weydo marka qof ay ku tiirsanaato waxyaabahaas oo dhan waxay keeni kartaa xanuun nafsi ah
oo markaa dhibaato qofkii market u geensanaya warbixinaan ka maqlaynaa warbaahinta oo ah dad ka noqday qurbaha oo markaa ninkii ugu dambeeyay muqdisho ku dilay nin kale masaajid ku dilay oo la yidhi maskaxdiisa ma garatay waxbaa u dhinna ma garatay marka maaha dadkii dhibaatada inay saameynaysa keliya dadkii dhulka joogay hase yeeshee waxay saameynaysaa lafteeda dadkii qurbaha joogay ee jaanis fiican u haystay inay dhakhtar tagaan oo markaa daweyn markaa ay helaan dad badan baa la kulmaysaa Soomaalida oo qurbaha oo diidaya matalan caruurtoodu waxaa jira cudurro kala duwan oo matalan caruurta ku dhaca waxyaabo la yiraahdo ADD ama ADHD la yiraahdo waxaan qalqaalinimada anagu naqaano oo marka lagu yiraahdo matalan waa la baaraya canugi si loo caawiyo marka qofkii uu baqanayo oo diidayo oo leeyahay may canugii baa saa lagu sameeyaa waxaas marka aragtida aan ka qabno xanuunada nafsiga ayaa aad iyo aad run ahaantii u hooseeya taasna mushkiladda saan sheegnay markii hore dhibaataday sii kordhinaysaa dhinaca bulshadeed markaan ka arko mushkiladda weyn waxay tahay habka qofka Soomaaligu caalamku u arka laftiisa iyada laftiisu waxay u keentaa qofka Soomaaliga mushkilad bay u keentaa qofkan Soomaaligu mar walba noloshiisa laga bilaabo markuu dhashay ilaa intuu ka dhimanayo wuxuu aragti buu ka haystaa caalamkan shishe inay yihiin caalam liddi ku ah dagaal kula jira qofkii uu dhalanayaa ardhaas baa loo gelinayaa waxaa lagu leeyahay jinka iyo ishay ka xijaabaysa baa lagu leeyahay markuu bilowdo inuu gurgurto oo rabo inuu buulka ka baxo waxaa la oranayaa waxa weeyaan maski baa halkaa ku cunaya ariga markuu raaca ariga la fogaan baa la leeyahay waraabihi baa meesha ka cunay waa loo xuxleynaya xux maaragtay ayaa looga dhigayaa hadhow markuu wax yar weynaadee sheekada looga bilaabana waxaa looga bilaabayaa dhagdheer sheekadeedii oo say caruurta u qalin jirtay iyo say caruurta maaragtay wuxuu arkayaa shakhsiyado maaragtay sheekooyinkan looga sheekeynaya in dawacadii mar walba ay guuleysanayso khiyaanadii wadi maaragtay oo miskiinka ariga mar walba la cunay caalam macnuhu ayna cadaalad ka jirin oo mar walba kii awoodda lahaa uu guuleysanayo kadib waxa dhacaysa wiilkii wuxuu gelayaa hadhow dugsiga quraanka ama gabadhii dugsiga quraanka gelaysa kadib markaas caalamkiiba cadaan iyo madow loo kala qaybinaya la leeyahay muslim baa jira gaaladuna halkaas ay jiraan col bayna leeyihiin saasay rabayna nagu sameeyaan qofkii uu weynaanaya gabadhii waxa lagu leeyahay wiilku cadow buu ku yahay saas rabayna kugu sameeyo waa waraabo weeyaan iska ilaali wiilkii waxa weeyaan waxa lagu leeyahay saas weeyaan asxaabta waxay rabaan sigaar inay ku baraan iska ilaali weynaanaya qofkii wax yar waxa la baraya waxa leeyahay qabiilkaas waxay rabaan inay nalaayaan dad badan bay naga laayeen saas weeyaan hadhow conflictkii wuu sii yaraanayaa ma garatay wuxuu ka bilaabayaa caalamkii muslimiga gaal buu ka bilaabayaa qabiilkii buu ka bilaabayaa hadhow wuxuu imanayaa familygii buu imanayaa markaas adeerka dhaxalkii bay naga cuneen saasay ma garatay conflictkii markaa wuu soo gelayaa hadhow ninku markuu hadhow weynaado rabo inuu guursado waxaa imanaysa in lagu yiraahdo iska ilaali naagta qofka dumarku waa cadow lacagtaada ha u sheegin intaad qaadatid waxa weeyaan iska ilaali mar walba yeena ogaanin guriga oo xilligaad imanaysid waqtigaad rabtid imaw saad rabtid adigu waxa la yiraahdaa qofkii dumarkana waxa laga baqsiinaya ninkii iska ilaali ninku waxa weeyaan lacagtiisa waa inaad kala daadisaa haddii kale qof dumar uu guursanaya oo kale waxa hadhowna qofkii bini aadamku aakhiro isagoo u socda oo martan masaajidda marka looga sheekeynayo muuqaalkii aakhiro waxa laga siinayaa muuqaal naxarin leh oo cadaabuna ay ku jirto oona la tusayn dadkii kale naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jannadii iyo macnuhu wanaagga dadka sugaya haddii marka qofkii intaasoo dhan laga bilaabo markuu dhalanayay ilaa dhimashada intuu sugayay wuxuu marayaa marxalad uu cabsi ku jiro uu ka cabsanayo dadkii taasi markaa waxay keenaysaa waxa weeyaan in qofkii bini aadamku uu muuqaal aanan caafimaad lahayn caalamkii adduunkii ka haysto dadkii uu ka haysto shaki bay ku abuuraysaa dadkii inuuna aaminin waxay ku abuuraysaa inuuna group matalan la shaqayn karin wada shaqaynayna yeelan karin maadaama la iskala ilaalinayo la iskala baqanayo waxyaabahaasoo dhan ee bulshadeed waxa weeyaan maadaama aanan ku murmi karin dagaaladu saameynta ay leedahay waxay leedahay laakiin waxyaabahan bulshadeed oo ah habka aan caruurteena u korino iyo habkaan noloshan u soo marna laga bilaabo markaan dhalano ilaa marka aan qofkii uu dhimashadii sugayo waxa weeyaan waa midna siinaysa caalam colaad ay ka jirto oo annaga uun inaan fashilanno sugaysa taas markaa qofkii bini aadamka maskaxdiisa dhaawac badan bay u geynaysaa waxaan kusoo khatimayaa habkan loola dhaqmayo dadka
bini aadamka ee dhimarka ka xanuunsan waa hab aanan bini aadam ahayn bini aadamnimo ahayn waa ama in la xidho ha noqoto ama in la garaaco ha noqoto ama inay caruurtu markay laamiyada socdaan dadkaasi dhagxaan lagu shiido oo lagu tuuro waxaas waa waxaan bini aadamnimo ahayn oo ka tarjumayn annaga diinteenna wanaagsan ee islaamka ah ka tarjumayn sidaa daraaddeed waa in loo qaataa dadkana inay yihiin dad xuquuqdii bini aadamnimada asaasiga ahay leh oo la ixtiraamo videogan waxaan u sameeyey nin saaxiibkay oo iga soo dalbaday oo markaa yiri waxaan ku khatamayaa markaa ha dhibin qof dhiban. Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.